laaba gacal noloshaadii hore gacalsadaadana u tag balse mid baan kuu sheegaya anigu waxaan hay weel malab ka buux iyaduna waa weel madhaweyn laba qaawana isma qaadaa hore loo yidhi fursadan maanta aan kuu sheegayana fursadda habiyo weeyaan inta noloshaada ka dhimanna kuma soo marayso saadaad gaan ku gaadhay okay ubax soo yara fadhiiso waxaan rabaa inaan kuu sheego kulley waan ka fikiray waxaad igu tiri niyaddeeda inay ku soo laalaabatay waana garanayaa nolosheedu mustawaha iyo heerkay taagan tahay hadda faamilkiiguna halkay iga sugayaan inaan tago iyadana waan garanayaa marka hadda go'aan waxaan ku gaadhay adigu sidaa doonaysid inaan sameeyo awaale aad baad ugu mahadsan tahay sidaad ila qaadatay anna waxaan kaa ballan qaadayaa inta noloshaada ka dhiman inaad farxad ku jirayso reerkiinana nolosha maanta ku jira nolol ka fiican aan gelin doono waad ogtahay awaale waanad ka warhaysaa aabahay waxa awlaada keligay buu dhalay dhaxalka waa aabahay maanta leeyahayna aniga ayaa dhaxlaya qofka labaad ee la dhaxlayana waa adiga sumad garan marka waxaan ku ballan qaadayaa aruuska adduunka ugu qaalisanaa in magaalada inooga dhaco labadeena aroos lamida anuuna magaalada ka dhacayn ana taa ku ballan qaadaya bisha malabkana waxaan ku qaadan doonaa Paris New York Roma meel walba adiga farxadaada ku jirto maxaad iga rabtaa markaad inaan sameeyo hal mid baan kaa rabaa kolley waad ii sheegtay inaad noloshayda ku soo biirtay ama adiga yeeshay laakiin hal mid baan doonayaa midaasina waxay tahay inaad habboon aad qanciso noloshaadana ay ka baxdo habboon inaan qanciyo nolosheeda ka baxdo way nolosheedaad ku soo biirtay soo ma hadda aniga aad farxadayda tahay aniga wax walba ii tahay marka iyada noloshaada waa inay ka baxdo weeyaan annaga si aan kugu aamino waxa rabaa inaad inagu imkooda joognaad wacdo una yeedho anigoo kula jooga labadana wada taagan inaad habboon qanciso una sheegtay ugu bashaaraysa inaad nolosheeda ku soo biirtay iyadana hadallo xunxun iyo waxyaabo ina ka filayn inaad kula dhaqanto Hello حبيبي عوالي ورن ما في عندها هاي ما أنت ولا البعض إلا هذا محي جرا ما حد عاي حباك وقص عقرتي هيون كوي مانيا هيون هي habboon عوالي gabadhan isbarta برشون يكسين habboon la yidhaa gacantaada dib iga celi waayo ma qalantid inaad saantaada aad baad u mahadsan tahay waad ii yeedhay maxaad iigu yeedhay habboon walaal waxaan kugu yeedhay wax kale maaha laba qof oo xiriir ka dhaxeeya labadeenu baan ahaan jirin iyadoo haddana sidaa tahay xiriirkii naga dhaxeeyay ayaan go'aan ku gaadhay inaan soo gabagabeeyo حدريك وعلي xiriirkii naga dhaxeeyay ayaan go'aan ku gaadhay inaan soo gabagabeeyo marka taas inaan kuu sheegaan xaggan kugu yeedhay umana qalantid inaad nolosheeda qayb ka noqoto marka sidaas inaan kuu sheegay ayaan xaggan kaaga yeedhay حدري هذا الكن هذا يلسنين في عن أقولنقه وايو أنت أسوس النضال يا نستعلن سببت ما أنت عاد إيجا دورة الدنيا محيطها هاي وأنا جيسلو أجين إن النلاش مال ولا دقيقة واي حكيني أرنك دب أقولنقه عوالي سي وحكي عن نقدين حبوا وينو حلها الليسي ولا الهبون labada xiriir uu naga dhaxeeya laba kastan xiriir oo ka dhaxeeya qaarna ku guuleysan qaarna kuma guuleysan hadda xiriirkeena labada naga dhaxeeya labadeena mid halkan ku gabagaboobay ayuu noqon doonaa hadalkana waa saan kuu sheegay
hadal badanna aan ma buuxso lagama yaabo midaas hadalkan kuu sheegay kuma galeeyma hadalkaagu waa sidii biyo sibir dul maray oo kale marka ma qaadan karo waayo sababta keentay inaad iga fogaatid maxay tahay walaal midaan kuu sheegay yare cawaala maaha qof noloshaada u qalma aniga iyo cawaale waxaan go'aan ku gaadhnay inaan laba qof noloshooda wadaagaan noqono nolol ku midooba dhawaan aniga cawaale waan iskuursanaynaa adiguna waa inaad raadsataa qof noloshaada u qalma midaan kuu sheego waxbayna qaadan waa kugu noqon wax walba way dhacaan adduunka korkiisa cawaalana laga bilaabo maanta aniga hanti u leh aniga ayuuna cawaalahayga yahay aniga iyo cawaalana waa saan hore kugu sheegay go'aan waxaan ku gaadhnay inaan heer mustaqbal aan wadaagayno arooska noo dhici doona wuxuu noqonayaa arooska jijiga ugu qaalisana aroos la midina arooskayga kama dhici doono oo midaan kuu sheego weli mid kale ka ilaawo cawaale midaan kuu sheego inta ka ilaawo waxay tahay aniga iyo cawaale bisha malabka waxaan ku soo qaadan doonaa Paris Roma London wadamada caalamka marka walaal waxaan ku odhan lahaa qof noloshaada u qalma adiguna waa inaad raadsataa mid ayaan kuu sheegay cawaale saacadda laga bilaabo aniga noloshada waad ka baxday waxaanan ku odhanayaan kuu sheegayaa noloshaada xor baad u tahay ciddaad doontid noloshaada waad la wadaagi kartaa hambalyo ayaad idin leeyahay duca kaagama baahnin hambalyana kaagama baahnin kamar cawaale iyo nolosha labada lagu sheegayo بس halkan aad soo keento masaan maleen okay waa sax waayahay maadaama ballanteedii ka soo baxday aniguna inaan ka farxiyaan doonaya ibir maad leedahay ibir meemil ha dhacay maadaama leego magaalada ku dhexlay kada ibir laay meemil wali ma isma samaysanba okay waa sax waayahay imika xarunta tagay ibir hadaba waa lagu sameeyay waqti xadirkan aad taagan tahay ibir tag soo sameeyso isoo wax ka dibna kusoo wacay marka soo sameeyay insha Allah kulli imikadan baa ku sameeyay way joogaan hayo maalin wanaagsan okay waa السلام عليكم وعليكم السلام سودو شركة إيبر محاك عاونا waa waxaan rabaa adeeg ibir in la furo وهي وكفر النورال إيش أقلم بكاغي أبر سجال لبي طبعا أبر سجال لبي طبعا لح سجال سجال لح شم مقع على سبحانه ولا إيش عوالم محمد ولا عيدي waxa qoonsi oo ma haysta mustaqbalkii aan wax eedi kaara ama qoonsi oo wataan akoonka ugu dhamaystiran guud oo gashan yahay inta laga wixii inta ma taqaana ka bilaabna akoonka waa isticmaali kartaa boqolkiiba boqol waa diiwaan gashan yahay
wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan shirkadda Ibir iyo adeegyada ay soo gudbisay iyo waxay fududeysay iyo macluumaad oo dhan waxay wada ka helaysaa markasta Ibir fatana gashana waxay ka helaysaa xidid 841 salaan oo waxaan raacaysaa la barsideedkaagii waxa hawada soo dhaweey ay wala halo ba kaawna waan furtay Ibir ya ha waan furtay هاي والدرب هو يسوق شيء بس انا وقت قدايم اساس ويه وهو باس سكيو كي عسير والله خلط اليوم من هذا بسنا لنا عادنا والله ولا سوون ما رانا الله والله ما كسبت دراسة كل واحد خلاص يقول ما سنتنا حبيبتي وفي عنا سيتها ونكسنتها ما شاء الله ورانكم نور سيتها هذا يسعفتي قورن لا دمانكم في عين الحمد لله ما انتوا تسوقوا قتم حجري صاحب والله دار ما مقلي ارنكن العوالد كل تكتين او waxaan maqlay gabar ka raacay daarinkaaba sidii bal saaxiibada la soo tali إن شاء الله خير بنقول دون ضحك استسكاي جدا هذا عي صاحب بل أو تكون كل تكتينون قبضنا مفرعين وامحي أنا مقلي سيدان أنكم مقلي ده كل كي هرب إلهي مقرن الحمد لله رب العالمين أنت النور هاي ونسكفر اليوم وفي عنا هيدا بأسكودي لجعائله لكن سكمان دلي مرة هذا اسكودي من العافية ولي إيمانك يجوب الحمد لله رب العالمين كل نفسي بقى ترد الوقاء كوهر كان دونا إن شاء الله ورجيني يا ذيك يورن حديثا ما شاء الله ونكون ياكم شايين وركه يفتي قبل بانك مقلي أوه عايز ويد عذاي وحني maanta waan soo nabadgalay alxamdulillaah wax ilaahay loogu mahadiyo laakiin waxa isugaysaa qaalidaydii ubax aan aadkiyaad kan u jeclaa ma maanta sarbara suga dhiga mise bari waan u sheegaa waay taas isweydiin mudan may caawin u sheegayaa haddan waacaya halo assalaamu calaykum ها قال يورم في عنتها الحمد لله قالات بنو وعناهاي ها ما شاء الله هو نودي متقالي يورم في عنتها كور عفماتك إلهي ما هدي قالي ها هو نودي مت
insha Allah hadii hotelkan ku kulmi jirnay ayaan caawa ku kulmayna hadii Ilaahay yiraahdo haye qali laakiin mid hadii adiga codsateen oo kugu talagalay insha Allah waa ku keenay caawina kulmayna hadii Ilaahay yiraahdo okay qali see you again haye وما وحنا سمينا سيد سؤال شانكو وديك جواب وابري ninkan waxa la yiraahdaa Awaale oo wiilan muddo badan aad u jeclaa ilaa waqtiga jaamacada aan dhiganay maalintaad adigu xiriirkaaga ileemanaysa ama jacaylkaaga soo bandhigaynaysa dareen iyo jacayl aan ku qabo iga ma ahayn aniga balse danaysi aan kugu danaysanaya ayaga isagana qof aan ka rajo sugayay buu ahaa inta soo dhan rajadayda aan u samriyaan sugayay maantana rajadii Allah iyo hamigayga waan helay isagana gacanta ayaan ku haystaa adigana wax wanaaga ama galgacayl aan ku hay ma jirnaa danaysbayga adan ifkii adduunka kugu jeclaa faraha qalbigayga noloshaydaad ahayd hadalay dhammaan maanta waxaan ku dhaho maba garan karaba xitaa ammaaniga ma mudnid si kastay ahaataba ereygaadi tiray aad bii dhaawacay habase ahaatay haddii aan ku dhibay iga naso dumarku ka badan Awaale gelib wanaagsan maanta ma waxaan muntaysay adiga amusto ساسال مركا أي رئيسنسا maxaa kugu dhacay maxaanii ka daba keenay waayo maadaama ku jecelahay weeyaan ayay ka soo tilmaamay meesha inaad joogto cidna mar walba ku daba socdaa marka aniga sababta aad jaceylkayga aad dulka ugu daadinayso maxay tahay anigu maxaan ka galabsaday maxaad aniga iga weyday od gabadha kale ku dooratay ma adduunyo waa la helaa maanta intaad adduunyo heshay habboon bad ku weyday sabab maxaa kugu kalifay inaad lacag iga doorato aniga ma waxaan noloshaada maan kaafin waay sabab Awaale ii sheeg sababta keentay ii sheeg maxaad iga aamusantahay ma adila hadashidun marun ila hadal maanta dhan baan ku dul taaganahay miyaad ilowday aabiyo hooyo inay ii keeneen rag badan oo dibadda ka yimid oo lacag haysta intaan lacag raacay maan iyaga ka raaco maxaan rabaa nolosha inaad ila dhameysatid baan rabaa sabab maxaad iiga raacday maxay waalidkeena maxaan isku fahmi laanahay waa adiga darta sababta maxaad iiga raacday maxaa kalifay inaad iga raacdo gabadh kale ana maxaan kugu sameeyay hay jeejeysan runta lagama jeestay si fiican ii soo eeg aniga mid baan kaaga tagayaa laakiin antaad adduunyo heshay habboon baad ku weyday ubax bay noqotay ilaahay mid khayr qaba ha kaaga dhigo mid gurigeeda lagu nasto caruurtiina aad ku wada faraxdaan dadku idinku daba daydaan ayaan ku rajaynayaa waanad ku mahadsan tahay saad ii dhageysatay khayr baan kaaga
sameeyey hadda muddadaas oo dhan waxaan ku duurtay lacagun keliya nafteeda intayn laag baan hadda khiyaama seen hadda u raaligeliyaa waatani maxaanse qaban karayaa maanta habboon ma garan kara wax kaloon dhaha wallaahi ilaahayow iga cafi السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. ايه ورنا ابو؟ في عنتها يا أبو. إلهي ما عديك. الحمد لله. وعوالي ونينك كاغا شيكيني ويلكان جعلها وكان أبو وكسو قوليستي الحمد لله رب العالمين. واو. وكان اسبرت أبو. برشا ونكسن حوالي يوسف علي هذا mid la mid adeer فرحت وين هي tahay inaan ku barto in badan bay iga kaa sheekaysa aniga ubax ها ubax أبو معاه. هي رانية عوالي سكين دايا هيا أبو أنا هول بصوير قبنية. إن شاء الله هيا أبو هيا أبو. هيا أبو معنا إن شاء الله يوداني يا شيء يا عوالي إيه ورنا ذي alxamdulilah صوب ثاني waa la iska fiican yahay gabadhayda ubax ayaa ii kaa warrantay waxay ii sheegtay inaad jaamacadda aad wada dhigabeejeen mar kulana aad kulliyadda ka soo wada baxdeen dee waxaan ku leeyahay dee farxad weyn bay ii tahay inaan maanta aan wada kulanno gacalisadaada ubax aabbaheed inaad maanta aad aragtidna dee aad baan kuu soo dhaweynaya adeer macaan aniga sidoo kale adeer waa runtaa aduu muddo dheer jaamacadda waan soo wareegayna anagii ubax sidaas la midana asxaab baan ahayn anigana farxad bay tahay in adiga kula kulmo adeer عوالي adeer qof faraxsanna ma tihin maadaama dee markii isku keen horraysa ay tahay ee maanta aan is aragnay ilaa iminkana dee murugo ayaa kaa muuqata wax farxadna kaama aan dareemaayo say waxu jiraan adeer bal ii waran waayo farxad baan kaa filanayay dee farxad la'aanna inaan wada sheekaysanno waa laga fiican yahay maxaa dhacay adeer adeer wax dhiba ma jiraan caadi baan may waxbaa jiraan ise waxay tahay ii sheeg adeer tan midaad wax ka qaban kartid maa ka warran haddaan wax ka qabto waa laga yaabaa waa adduun wax kastaa suurtagal waaye wax kastana waa la xallin karaa adeer waan jeclaan lahaa inaan kuu sheego haddana dee hadda booskii aan kugu sheegi lahaa iima taagnid aduu wax kastoo noqotaba adeer hadda ka hor waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah gabadhaada ubax way soo wacday muddo dheer iyadoo isugu kaana dambaysa oo sanad meelahaasaan u malaynaya qalinjebintii kadib markaa waan wada ballannay meel baan ku wada ballannay meeshii waan iskugu imaanay marka dee gabadh asxaabtaydii ahayd oo aad baan u soo dhaweeyey waxaana ka filaynin ayaan kala kulmay waxay soo bandhigatay ubax jacayl kow iyo xidhiidh haye iyadoo sidaa tahay haddana waan u sheegay ubax inaan gabadh la socdo oo aan gabadh adiga haye oo gabadh xidhiidh naga dhexeeyo haye ubax intaa kumayna joogsanin oo ku dhabar adagtay ilaa haye si kastoo igu heshaba inay anigay soo hantido marka gabadhii aan jeclaa aan muddada dheer soo wada sheekaysanaynay waxay ku dhammaatay inaan xumeeyay gabadhii oo aanu wax ka soo qaado waa maxay wax iga sheegaysa waa wax la yaab cawaale waxaan ku weydiinayaa gabadhaas habboon oo ii sheegtay sababtaadu xumaysay maxay tahay adeer macaan adeer hay adeer macaan dhibka jira adeer
ubax waxay iga soo gashay dhanka dhaqaalaha haye adeer haddaan kaaga sheekeeyo noloshaydii ama taariikh nololeedkaygii haa anuu caailaadka saboolan ka dhashay ama Haye. qoyska saboola haye iyadoo sidaa tahay haddana aabbahay waa iska mariil haye hooyaday suuqay waxay ku iibsisaa qudrad haye iyo bagaashi wax yar yar haye sidaas way tahay adeer taasaa liigu soo koriyay aniga haye oo aan intan kula soo gaadhay maanta markii liiga sugayay aniga inaan booskii ka soo baxa layga rabayna dee qadartaan qorin oo wax shaqaa ma helin marka ubax waxay iga sheekaysaa aduu inaad aan horaanna uga sii warhayay in adiga aad maalqabeen weyn tahay iyadana keligeed aad ka haysatay ciyaal marka waxay ii sheegtay in haddii aan xidhiirkan ka aqbalo ay noloshayda kaafinayso sidaas si lamida nolosha faamilkayga ay kaafin doonto taas marka waxay igu qasabtay gabadhii aan la sheekaysanayeen jeclaa muddada dhan inaan qalad iyo waxayna iga geyin aan ku sameeyo waan halkaa kaga soo dhaqaaqo horta wiilkayga oo kale tahawa se gabadhaas aboon waxaad ku samaysay waxaa marnaba lagama yaabo in aqoon u geedhin karo anigaba adeer kuma qanacsani taas hase ahaatee qofka bini aadamka damac waan geli karaa oo haddii dhaqaale loo sheego isbeddel wuu keeni karaa inkastoo aad ku khaldaneed laakiinse waxaan ku weydiinayaa cawaale si kasta ay ahaataba waxaan jeclaan lahaa inaad hal eray keliya adna aad iiga jawaabtay aboon ma jeceshahay intaad u malaynaysa in ka badan maa jecelahay habboon waxaan ku tilmaamaa ma garanayo yacni farxaddaydu weligiiba iyaday ku xidhnayd hadduu la taagan yahay iyaday ku xidhan tahay saan aaminsanahayn iyaday ku xidhnaan doonta marka kule kaa hadduuna jecelahayn ma garanayo wax kaleeteen lahayd cawaale iminka waxaa ii soo baxay ani horta nin waayo aragay magaalaan ku dhashay ma garatay 60 jir baan ahay waayo aragna waa u soo noqday jacayl laakiinse qofka bini aadamka wuu khaldama laakiinse waxaa fiican inuu khaladkiisa dib u saxo waxaan rabaa gabadhaas miskiintaas godobtaa ka dhashay qalbigaad ka dhaawacday muraahiddii aad ka jabaysay inaan adiya ayadii aan jacaylkiina dib u soo noqdo inkastoo ay gabadheedana ay ku jeceshahay laakiinse adeer waxaan kaa codsanaya nambarkeeda ii qor si aan ula xiriiro adeer wakaa lambarkeeda aad iyo aad aa u mahadsan tahay sawirkeedana haddaad u baahan tahay ku raacan karaa waa qasab sawirkeedana waa u baahnaya habboon barasho wanaagsan adeer magacayga waxaa la yidhahdaa yuusuf sidaan kuu ballamiyey waan kaaga mahad celinaa saad ii yeeshay adiga mawduucan kuu ballamiyey waxaan rabaa inaan kaala sheekaysto cawaale arrinkiisa barasho wanaagsan aabbo magacayga waxaa la dhahaa habboon waana kugu soo dhawaynayaa sida sharafta leh aad iigu yeertay aniga cawaale shalay ayaan is aragnay wax kastii uu ii warramay inaa adiga labadiinna muddo aad wada socoteen uu ku xumeeyey laakiinse uu ka qomoomayey arrinkaas markaan la sheekaysanaya waxaa ii soo baxay runtii habboon inuu wiilkaas ku jecel yahay uusan marnaba ilaa hadda qalbiga uusan kaa bixinin sababuu ubax uga tagayna qofka bani aadam damac ayaa galay maadaama uu shaqo la'aan ahaa uu ka dhashay qoys sabool ah laakiinse waxaasoo dhan wuu ka maqomay waxayba noqotay markaan sheekaysanay in hadalkii uu ka soo bixi waayo mar kastina qalbigu kugu hayaa adiguna ku soo xasuusanaya aad baan arrinkaa ugu farxay waayo cawaale markii hore indhahayga ayaan ka jeclaa nafsadayda dhan ayuu ii buuxiyey midda kaleetana
waxaan rabaa inaan si kalena aan isku kaabaro mar labaad aniga ubaxdaas gabadhaas aabbaheedaan ahay aabaheeda ubax aabaheed baa tahay waayo adeera maanta kedis ayaad iiga dhigtay maxaa kalifay inaad maanta ii wacdo waayo ubax calolxumo badan ayaan u hayay waayo qofkan adduunyada u jeclaaba iga qaadatay habboon adeer adoo iga raalli ah waxaan jeclahay inaad berri iigu timaadid guriga si aan soo kuu sheego aan jacaylkiin dib u saalayso wax xumaanna ha u qaadin ma garatay ani garab baan ku siinayaa adna waxaad garab igu siisaa intaas haye adeer waan kuu imanayaa insha allah habboon haa cawale maxaad iga soo doontay gacalisadaad ubax maxaad uga soo dhaqaaqday arrin yar baan rabaa inaan kaala hadlo maxaad ii sheegaysaa walaal habboon waan ogahay inaan qalad galay yacni wax bini'aantinimo ka baxa baan xitaa ku dhaqmo waan ogahay jacaylkaaga inaan gafka galay waan ogahay maqaldamana waa ilaahay oo keliya maanta waxaan xaggan kuugu imaaday inaad iska kii cafiso cawaale nafku jecel ayaan nahay maxaan dembi kaa galabsaday maxaad aniga iiga weyday maxaad iyada ka heshay see maanta aniga sababta iigu kaa soo celisay maxay tahay adduunyadiiba ku noqon weyday waan ogahay inaan dembi galay inaad jeclaydna waan ogahay laakiin waxaasoo sabab aan u sameeyey baa jirta wax cudurdaaran uma diidayo ubax waxay iga soo martay dhinaca dhaqaalaha adna waad garanaysaa dhaqaalaha ay ka heer ku taagan iyo dhaqaalaha faamilkanaga sababtaan u raacayna taasun bay marka please waxaan kaa codsanaya inaad iska kii cafiso cawaale maxaa kugu dhacay habboon ani farxad ayaan aamini laayahay waayo qofku jecel ayaan ahay tootalna jacaylka wax lagu xisaabin kara maaha tira ma gasho jacaylkaan kuu qabo qofku jecelna xumaantaada uma muuqdo cafis ayaa diga tahay saacadda laga bilaabana laabteeda waan kuu furayaa ku soo dhawoow aabbo waa maxay sidaan uma adkaysan karaya cawaalo u sii tegaya habboon maxaad ii qabanaysaa aabbo gacanta aniga wax kasta waan soo ogaaday gabadhaas miskiinta ah habboon iyo cawaale jacaylkoodii mustaqbalkoodii laba lamaale isjecel oo doonaya inay nolosha wadaagaan ayaad hor istaagtay mustaqbalkooda ma garatay marka aabbo khaladaad weyn baad samaysay aabbo anigoo gabadhaada baad saa ilaalisa aabbo ma halkaad anigoo gabadhaada aad garab isiin lahayd eed anigii garab istaagi lahayd iyadaa aabba habboon iga raacaysaad garab siinaysaa waa maxay aabbo maxaa kugu dhacay gabadhaada keliya tada duunka ka eegay tada duunka ugu jeceshay maanaan hayn aabbo waa maxay sidaad ila hadlaysaa maxaa kugu dhacay aabbo maanta maxaa ku bedelay cawaale waxaad ku soo jiiday dhinac dhaqaale ah ma garatay aniga haddaan aabbo runta kuu sheego xoolahan waa u soo tabcay dhib baan u soo maray mana jeclaysanaya aniga gabadhayda wiilkay ii keento in aan dib masaariif u siiyo laakiin aabbo waxaan jecelahay oo ani sharaf ii ah haddaan aabbahaay in sidii dhaqankeennii soomaalida lagu soo doonto oo lagu bixiyo qof kuu shaqeeyana oo yaraddii ii keena guri kuu dhiga alaabtaada kuu dhiga ku masruufa kaa adkaada ayaan jecelahay maxaan aabbo markaa imika sameeya waayahay maxaa waajib ugaan sameeyaa imika laba arrimood baa ugu tagaysaa marka koowaad inaad raalli gelisid khaladaadkaad ka gashay waayo qof bani aadam miskiin tan labaad waa inaad u hambalyeeysaa labadoodaas taas ayaa weyga keliya kuu habboon inaad samaysid haddaad taasaad samaysidna aabba waxaad tahay qof wanaagsan adigana ilaahay waxaan kaaga baryayaa mid ku qanciyo farxaddaada wanaaggaaga oo reer kuu sameeya
ayaan jeclay midda kaletana ifka intaan ku noolahay hantidayda intaan noolahay ma jecli inaad beenbeen aad ku bixisid laakiinse maalintii tii ilaahay ay timaado sidaa rabtid waa yeeli kartaa hayaab waa balanaan kaa qaaday waana u tagay imika raaligelinta aad ii dirtay iyo mahadcelinta labadaba aab waan soo sameynaya waana adii caqli ciise abaad baad u mahadsantahay habboon walaal macaan iska kay cafi sababtoo aan dhaawacaan kuu geystay waxaan kuugu geystay aqoon darro iga haysa dhanka jacaylka manaanan aqoon jacaylku xuye balse maanta ayaan bartay jacaylku inuu yahay wax la dhowrto macno male ubax ma qaldami waa ilaahay maadaamaad iga qaldantay anigu walaashaa baan ahay waan ku cafiyey raalli ayaan kaa ahay booskaaga haddii aan maanta ku jiri lahaa laakiin aanu saamaan sameeyey intaadii dhaawacday gabadh qeyrka oo kale ha dhaawicin sida gabadh walaashaa oo kale qof walba ka soo qaato ubax walaal markii hore labadeen dad asxaabaan ahay haddana xiriir baan soo dhexmaray haba iska gaabnaato muddadiisii wax ka soo dhacayba hadda way dhaceen waana la soo dhaafay walaaladu waxaad haysataa wiil ku jecel intaanu gabadhan jecelahay in la eg in ka badan wiil ku jecel baa haysataa waxaan kugula talinayaa qof adu aad jeceshahay haddii deena qof ku jecel inaad ka tagin habboonay haddii walaala hartaan kaaga warramo maxaa la dhahdaa taariikhda cawaale ama jacaylka aanu qabay muddo badan ayaan cawaale aad u jeclaa inteedaan is aqoonni ama xiriirkiinuuna bilowmin ka hor ilaa waqtigan jaamacadda dhigaynayna kamanaan quusan xanuunka jacaylkiisu iigu hayo aan u adkaysan waayo darteed baan u sameeyey falka foosha xun lamaanta waxaan xasuustaa maalintii anigii cawaale aan wada joognay aad noo timi sida xunna aan kula dhaqmay inaad ii hambaliyeysay balse maanta ayaan aniguna hambaliye iyo raaligelin labadaba iskugu kaa daraya walaal macaan hambaliye baan ku adiga iyo cawaalana isku waara ilaahayna idinku simo ubadkaad dhashaan ubadkiisa aniguna waxaan idin leeyahay waa lul jacaylkiya alla waa idin kala lumin waa bari maanigoo ku xumeeyey waan ogahay sidaan kuu xumeeyey iyo sidaan qalbigaaga u dhaawacay ayaad maantana weliba ii timid ood ii soo laabatay kama qusan adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii-dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida haddaba sidee buu u shaqaynayaa adeegani aniga ayaa kuu sharaxaya marka hore macmil lacagtaada ku soo shuba ii-dahab dabadeed garaac xidig 7 eber eber 4 gees ka dooro dir xawaalaad dabadeed geli magaca qofka loo diraha oo dhammaystiran kadibna geli telefoonka qofka aad u diraysid oo isaguna dhammaystiran intaasi ka bacdi macmil geli magaalada amaba se wadanka aad lacagta u diraysid dabadeed mar kale ayaad gelin doontaa xadiga lacageed ee aad u diraysid qofka dooro khidmadda cidda laga jarayo ma adiga ayaa laga jaraya mise lacagta ayaa laga jari doonaa ugu dambayna hubi macluumaadka qofka aad lacagta u diraysid dabadeedna geli bin nambarkaaga isticmaal adeegan casriga ee fudud ee shirkadda dahabshiil iyo adeega ii-dahab wixii faahfaahin intaasi dheer la xidhiidh telefoonka somtel 111 معرض baabuurta casriga ah ee Hyundai ee dahabshiil gaari loo bogay oo ay gacan hore taaban gabigeed Hyundai gayigeena cidina kuma gaadho
Hyundai dahabshiil ayaa macaamiishada waxa ay leeyihiin sanad wanaagsan sanadka 2020 maaradka Hyundai curashada sanadka cusub waxa uu sameynayaa qiimo dhimis heer sare ah oo ah noocyada gaadiidka kala duwan ee Hyundai maaradka Hyundai waxa uu leeyahay service ay farsamo yaqaan heer sare ah ku qabanayaan wixii aad hawl uga baahato waxa kale oo uu leeyahay qaybtii spare partska gaadiidka Hyundai waxa intaasi ku dheer iyana garantiin 5 sanadooda oo gaadiidku uu leeyahay haddaba ha mogaanina Hyundai dahabshiil iyo qiimo dhimista sanadka cusub ee 2020 Hyundai dahabshiil الله قيقا يرفقك كورمان كبحيا walaal waa maxay sirtaadu dhuxul badan iyo dambas bay daashaday walaal sirtaydu waa jiifka ka original dhuxusha madxisan Kenya na dhigsi oo walaal habkee loo isticmaalaa sida loo isticmaalaa aad u fudud tahay halkay rumo soo furaysaa waxaad gelinaysaa uun warqad yar oo ololeysa ama dhimbiil yar oo dhuxul marka sare saaranaysaa banki kakawa waa girgiraha ugu horeeya girgirayaasha lagu isticmaalo qaaradda Afrika waa girgire aad waqti dheer isticmaali karto waxa uu cuntada u karinayaa sida gaas waxaana uu ku baajinayaa 5% dhaqaalihii kaaga bixi lahaa gaaska iyo dhuxusha kan kalena waa jiifka kawa extra waxa loogu talagalay faamiliyada ballaaran iyo casuumada banki kakawa waxa astaan u ah kartoonka huruuda ee ay ku xardhan tahay baan waxaana ka helaysaa geyga Soomaalidu degto oo dhan الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة كن maalmood oo dhiganta 30 bilood waa geedi socod ka bilaabma maalinta uurka ay hooyadu qaado ilaa iyo marxaladda 2 sano ee naasnuujinta adoo qurux muuqdala leh dhexdaada markaan ku beermay mama muxuu dhadankaagu holmay dhalmaan wejiga waa waajibkayga inaan daryeelo xaaskayga iyo ubadkayga waa waajib inaan ilaaliyo xaaska inankayga waayo inantayday ila mid khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahli daryeelka hooyada iyo dhallaanku waa waajib saaran dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba si loo helo hooyo iyo dhallaan caafimaad qaba hooyadu waa inay tagtaa goobaha caafimaadka xilligay uurka leedahay iyo dhalmada ka bacdi ay hesho baaritaano caafimaad oo dhammaystiran sidoo kale hooyadu waa inay ka agdhawaataa goobaha caafimaadka xilliga umusha si ay u hesho xirfadlayaal caafimaad oo u adeegi kara xilliga ay foolanayso hooyadu sidoo kale waxaa muhiim ah hooyadana aan meesha in lagu sheego ay muhiim tahay nafaqada ilmaha hooyadu waa inay nafaqada ilmaha ku dadaashaa 6 bilood wixii ka horeeya waa inay siisaa caanaha naaska oo barax tiran oo wax kale loo raacin 6 bilood wixii ka dambeeyana waa inay cuntooyinka nafaqada leh ee kala duwan iyadoo naasnuujinta sii wadaysa ilaa iyo 2 sano waxa kale oo muhiim ah in talaalada ilmaha dhammaan talaalada muhiimka ah loo dhameystiro inta da'da ka horeysa 2 sano si uu ilmuhu dhammaan